Cilmi-baarayaal u dhashay dalka Shiinaha ayaa soo saaray farsamayaqaan robot ah oo ay ku shaqaynayso sirdoonka macmal kaas oo laga yaabo in uu ogsajiinta ka soo saaro biyaha Mars. Robotku waxa uu isticmaalaa agabka laga helo meeraha cas si uu u soo saaro kiciyayaal biyaha jebiya iyaga oo sii daaya ogsijiinta. Fikradda waxay kaabi kartaa tiknoolajiyada soo saara ogsijiinta ee jirta ama waxay horseedi kartaa horumarinta kicinta kale ee awood u leh inay ku soo kordhiyaan khayraadka waxtarka leh ee Mars. Haddii aad ka fikirto caqabada aadida Mars, waa inaad ku shaqaysaa agabka deegaanka, ayuu yidhi Andy Colbert, oo ah farmashiye ka tirsan jaamacadda Liverpool UK. Marka waxaan arki karaa macquulnimada ka dambaysa. Daraasadan oo lagu daabacay Nature Synthesis hal ayaa waxaa hogaaminayay Jun Jiang oo ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyada Shiinaha ee Hefei. Jiang iyo kooxdiisu waxay isticmaaleen mishiin wareeg ah oo cabbirka qaboojiyaha leh oo cudud roboti ah si ay u falanqeeyaan 5 meteorites oo ka yimid Mars ama lagu soo ururiyey dhulka laakiin la ekaysiiyey oogada Martian. Hadafka kooxdu waxa uu ahaa in la baaro in mishiinku uu ka soo saari karo waxyaabo waxtar leh oo ka yimaada alaabta. Nidaamka ay ku shaqeeya wuxuu isticmaalaa aashitada iyo alkali si uu u milo oo u kala saaro walxaha kadibna la falanqeeyey xeryahooda ka dhashay. Kuwani waxay markaa aasaaseen raadinta in ka badan 3.7 milyan oo qaacido ah kiimikooyin burburin kara biyaha oo loo yaqaan inay ka jiraan barafka tirarka Mars iyo hoostooda meeraha geedi socod. Kooxdu waxay sheegtay inay qaadan lahayd cilmi-baare bini'aadam 2 sannado. Natiijadu waxay ahayd kicinta falcelinta ogsijiinta kobcinta kaasoo ka sii dayn kara ogsijiinta biyaha iyadoo suurtagal ah in loo isticmaalo howlgalka Mars mustaqbalka. Waxaan samaynay nidaam ay roboti ah oo leh maskaxda kimistariga, ayuu yidhi Jiang. Waxaan u malaynaynaa in mishiinkeennu uu isticmaali karo iskudhisyada macdanta Martian iyada oo aan la helin hagitaan bini'aadan. Waad ku mahadsan tahay la socodkaaga sayniska. Mar haddaad intaan soo garatay, saaxiib YouTube-ka sabskraib iyo like iyo share intaba waa dhinacaaga mahad adaa leh. Abuuraha kataliska ah. Haddii wax kiciye ah oo soo saari kara ogsajiinta biyaha lagu samayn karo Mars, tani waxay meesha ka saaraysaa baahida loo qabo howlgallada lagu qaado kicinta dhulka. Jiang wuxuu sheegay in mitir kasta oo 2 jibaaran oo ah walxaha Martian, nidaamka kooxdiisu ay samayn karaan ku dhowaad 6 garaam oo ogsijiin ah saacaddii, taasoo suurtogal ah inay meesha ka saarto baahida cirbixiyeennada ee howlgallada mustaqbalka ee meeraha si ay ogsijiinta uga qaadaan dhulka si ay u isticmaalaan marka ay halkaas tagaan. Robotku wuxuu si joogto ah u shaqayn karaa sannado, ayuu yidhi Jiang. Si kastaba ha ahaatee, Michael Hecht oo ka tirsan macadka tiknoolajiyada Massachusetts ee Haystack Observatory ee Westford ayaa sheegay in ay jirto hab aad uga fudud oo lagu soo saari karo ogsijiinta Mars. Waa madaxa baaraha ee Mars Oxygen in situ resource utilisation experiment MOXIE ee saaran markabka NASA Perseverance rover, kaas oo taabtay Mars bishii Febraayo 2021, wuxuuna si guul leh u muujiyey soo saarista ogsijiinta hawada Martian taas oo u badan kaarboon dioxide. MOXIE waxaa keliya oo loo isticmaalay in lagu soo saaro 2 garaam oo ogsijiin ah markiiba, taas oo ay ugu wacan tahay soo saarka awoodda dhexdhexaadka ah ee adkaysiga. Laakiin mustaqbalka, nooca MOXIE ee la miisaamay waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro ogsijiin in ka badan oo ku filan dejinta aadanaha. MOXIE waxaa kale oo ay soo saari kartaa tiro ku filan oo gaasta ah si ay ugu adeegto ogsaydhiyaha shidaalka gantaalada si ay u bilowdo farsamada safarka dib ugu noqoshada dhulka. Waxaad soo saari kartaa 2 ilaa 3 kiilogaraam saacaddii, ayuu yidhi Hecht. Ma jirto wax caqabad ah oo arrintan kor u qaadaya. Jiang waxa uu tilmaamay in farsamayaqaanka robotka kooxdiisa sidoo kale loo isticmaali karo in lagu soo saaro waxyaabo kale oo faa'iido leh oo ku saabsan Mars, hababka sida bacriminta dhirta. Kimikada kala duwan waxaa samayn kara robotkan, ayuu yidhi. Marsna maaha meesha keliya ay isticmaali karto. Waxaa laga yaabaa in ciidda dayaxa ay tahay jiho kale, Jiang ayaa tiri.
isticmaalka ay si loo soo saaro agab waxtar leh. Habkan waa aag cusub oo cilmi baaris ah, ayuu yidhi Ober, oo leh codsiyo ka baxsan safarka hawada. Waa habka soo ifbaxaya ee isticmaalka ay kaas oo si ballaaran loo dabaqi karo dhammaan noocyada kiimikada, ma aha oo keliya kicinta iyo soo saarka oksijiinta, ayuu yidhi.